وسالة المالية وراها الديلان كاهي برعو دوك وسالة وحبرشة إلى قبركه بليران كلا يجلس سوتي معلمين تدوكسية يا عرضي سبا والد السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا وفد جاه نوتني ولا وسالة وحبرشة قلبي نسيت ديجان كلا وين كسر وين الدوكسية صار إيش اسمع نور وأنا كل محسنتين ولن شرف له وأنا جب ولنتينا ما تدوك سنتي معدان وأصوب وغتان وأيه سأركتان وحو قواء أركتان وحو باهيه سوحكو غتان وعي قلين يتصارنا أو الغتان راضي له وحوش يكتان وإن كسول وإن نالتين كينا اعتمادين أنا أسبوع أسبوعين هذا الكلمة أسبوع أسبوع إن شاء الله وأنا أسودهم بيننا بل مركي وحيا واحد على عين بحلوي الشيخ عثمان نور وحي هين شركة يا أنا ولا ما شاء الله كبار وحويان ما أنت وزيرك يفتي الله السعودة marka hore horta waxa keenay dugsiyada inta badan way marayaan gaar ahaan dugsiyada sare hase haata sheekh Usmaano wuxuu ugu yaalaa si gooniya bay u jirtaan wax kale waxa weeyaan sanqaraha beri dhawateeda ka baxay ayaa waxay gaareen meel fog وشكلان لقما يا شكلان أرنتاسو إن يقف كستو سوماليلاند ده أو حبرشة يقالنا أو أرض قديس السنة قيم كيس مرين كره أو قرن كره واحد لوجت يدو أرض قديس السنة شارك العب قشن أو إذا أنت دريش قشن وحمانت لقفل أيه لقدون أيه يوم الوش يدك سنبا كارتاد وي وحنا وين سهرنتيه لكن وحا أما وارثها هو لقبك سلا أما وارث أنت ماشي بركة عذري مادو أما وارثفيا وهاجا ودتكو كبك سلا أما وارث أنت إذا أكبر يا إلينا رجلا واحد هو دعاية أما خالد أنا جبت قالوا عنه سيجا ساق واحد من وزيرك يوفتي هودي سنة وهم هذا عندنا فصل ككوبات يلا هذا جبت كل إذا عندي قابسي صلاة سعوتان وفتي بلارن أو قابلني وسير الدولة مالية اسمه عداني أيها هل كان يدوكو يبي سو قدامية قدامك وحبرشة وشاقينا وحا وتشيدد وهاي إن وقتنا مقالدين وحد يرى مودع سمعت دي آينا هايد إناي هوس ويرى دعوي عمتي وحلقو يقاني مقالدين وحلقو يقاني ومقالة عين وران كرنا هرمود كسومال لما يدبرعو إلا عولبا وقامنتا marka ujeedadu waxa weeye inaynu wixii yaraa inaga xumaaday xitaa waxa la sheegay wax aynaan sameyn ayaa la inaga faafiyay oo been hadii jeer mar tartan baa ka dhaxaya magaalooyinka ka dhaxeeya marka wax dhacaan baa wixii la buunbuunaya marka si ay wixii dhacayna aynu baabiino de halkii ay taagneed magaaladuna aynu geersino waxaan sheegayaa taariikhda magaalada oo ka dhansantii halma in la idin dhigo wasiirkuna tawmaanta ee u socda ee aan kula soconnaa ee uu ka bilaabay magaalada waxa ahayd in dadkii burco la walaaleeyo
la mideeyo karaamadii ay lahayd wana reer Burca wasiirku wax ku soo bartay dugsiga Sheekh Bashiir buu ka baxay way runtii uu ka damqada in runtii isaga maartay hawshan bilaabay annaguna waan kala qayb galnay hawshan iskuulka Sheekh Bashiir baa la tagay Sheekh Ibrahim baa la tagay maantana 15 baan joognaa waxaan doonayaa anoo wasiirka uga hadalka uga kulay wasiirku idin hadli doono iyo barasha ku xigeenku idin hadli doonaa waxaan doonayaa inaynu ku soo celino sportigu siduu ku ahaa gobolka sportigu siduu ku ahaa ardaydu markii aan anagu arday ka ahaa ardaydu isma yaqoon cid walba iyaga iska xiga labada isku galaaska saaxiibka cid walba iyaga iska xiga ma gari habeenkiina iyaga israaci jiray waxaan doonayaa in ardaynimadii ay soo noqoto saxnada buracnimada ay soo noqoto waxaan doonayaa reer 15 hadda tiin maamulka iyo macallimiinta iyo ardayda waliba ardayda hadda tiin inaad nagala shaqeysaan buracnimadii iyo togdheernimadii diyaar ma u tihiin nagala shaqeysaan mudane Cismaan Cabdullaahi Saxadiid odayga waxbarashadooda runtii dadka abaal badan ku leh ilaa cadaani marka la isu geegeeyo waa macallinkiisii qofka meel ugu yimaadaba miduu maamulo ugu yimaado miduu macallin ugu yimaado iyo miduu ugu yimaado dee sidiina guddoomiye waxbarasho gobol oo fiilka waxbarashada uu ka soo shaqeynay noloshiisa xildhibaanka iyo saraakiisha oo runtii dee xildhibaanku aad idinla hadlay oo weliba idiin sheegay wixii jiri jiray Burca ahaan jirtay runtii weliba waxaa ka horreeyay rag horoo walaalaa oo Burca kubadda u wada ciyaari jiray dhinacay u tahayba dhib maaha ummadnimaday ka mid tahay qofku wixii uu la shir yimaado in lagu taageeraa waxaad u liidatay waxaa la idinka wacdiyay qabyaaladda oo aan macno badan samaynayn oo fiirso ka kugu wacyigelinaya qabyaaladda ee doonaya inaad kula noqoto urur ama bah ama aad kula dan noqotaa waa qof liitaa waa qof aanay noloshu saacidi karaynin inuu iskii u noolaado waxaan uga jeedaa wixii laydin odhanaya waanaa waa laydin idinkaana mustaqbalkii ummadda ah waa sida raggan fadhiya yani bidiye ismaan lahayn Cabdi Axmed Saciid ayaa idinkoo maamulo u imanaysaa isagoo dee dugsiga maamula ninkii shalay ardayga ka ahaa maanta markaan ugu soo gelayno dee ma duruuftu waxayna faraysaa inaanu isaga ixtiraamno oo stiil guddoomiye noo ahaaday macallin sidaasoo kalunbaa berito idinkuna ahaanaysaan halkaa fadhiya maysaan raqba waa ku raggeeda maalin baa warbaa dhaamiya maanta mustaqbalkii qaranku gacantiinuu ku jiraa quruxdaa wax leh oo noocaasa oo shabaabkaasi ma jiro dadka waaweyn oo dhan way taahayaan annaguna booskoodaanu bedelaynaa kuwii annagana dhalay way socdeen allah u naxariisto yaa wiyaashii kuwa ku abtirsataan magacaagoo saddexan waxaa laga yaabaa in aabihiin nool yahay kina awowgaa ma noola annagana aabbayaa awowga toonna ma noola raggeega halkan maraya idina berita saasaa u tegaysaan shay kastaa u tegayaa qof walibana taariikh buu ka tegayaa ka xishooda inaad ka tagtaan taariikhda ku dadaala ina ummaddiina uga tagtaan dhaxal ha isu arkina rag yaryar secondary baati hay iskuulkii baa ku jirtaa waxaa idiin haray waa hay educationkii oo qura hay iskuulka haddaad dhamaysato inaad mas-uul noqoto waa suuragal waayo daanaba jaamacad maana gelin duruufun baana keentay inaan xilka idiin qabanno ilaahayna aan ugu asturo idinkana ilaahay shabaabnimadiina ha idiin barakeeyo ku dadaala aqoontii qarankaad tiine midnimo wax wada lahaanshiyo wada noolaanshiyo hadalka waxaan kaga tegayaa waa waqti adagoo wasiirka idinla hadlaaya wixii laydi odhan lahaana waa laydi yidhi war Burca maanta waxay u baahan tahay midnimo xoog iyo itixaad bay u baahan tahay tafaraar uma baahna ma kala maarantaan xaqiiqda marka la eego sidaasaan idinkaga tegayaa dadaal wacan baa laynooga baahan yahay juhdi inaynu gelino magaceenna aynu noolayno intaasaan hadalka kaga tegaya waxaan kusoo dhaweyn doonaa taliyaha qaybta booliska waxaan kulley waa salaamantii innagu maalin horaan wada hadallaan u malaynaya si fiicanna waad noo soo dhaweyseen waynaanu ballannay anigu waxaa ragga kale ka hadlaya dee waa reer Burco ka hadli maayo waxa weeyaan waxaan idiin sheegayaa ballantii aynu qaadnay una inaynu halkii kaga dhamayno oo ahayd xagga amniga inaynu ka wada shaqeyno
maadaama dhalinyarada tihiin iskuullada matalan dhalinyartu iyaga waxna qaban kara waxna roog marka inagu inaad mustaqbalkiina aad ka dhigtaan wax qabad iyaga coos qabsataan amnigana aad ka shaqaysaan oo sidii aad u ballan qaadeen intaan joogay aad baan ugu mahadcelinayaa si fiican baad u qabateen amnigii waad ka shaqayseen iskuulkii midnimaad ku soo celisay maalmii hore layniyar xamleeya la lahaa waa iskuulkana ugu yar rabsho badan oo caynkan la lahaa intaan joogay wax dhibaato kama ayna dhicin iminkana waxaan idin rajaynayaa inaad sidaa iyo si ka fiican aad u sii qabataan annagana aad gamcaha nala qabataan amnigana aynu ka wada shaqayno sidii wasiirkana aad u ballan qaadaan sidii maalintii annaga iyo badha saakaba aad noogu ballan qaadeen eed kaga dhabayseen inaad wasiirkana u ballan qaadaan hortiisa inaad ka sii dhabaynaysaan aad baad u mahadsantihiin xilli baa la joogaa waxbarashayna sugaysa wasiirkuna kolley hadalka wuu u kici doonaa anuu hadalka waxaan u kacano inayna salaamo inii mahad celiyo intii aynu ka ballannay sidaad u fuliseen aad baanad u mahadsantihiin waanayna salaam cabdillaahi saxardiid gudoomiyaha waxbarashada gobolka taliyaha qaybta biliiska xildhibaanka gudoomiye ku-xigeenka gobolka maamulaha dugsiga iyo macallimiinta iyo ardaydiina halka fadhida dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anugu hadalka badin maayo waxa weeyaan waanta waxaan ku jiraa waxa weeyaan waa halkan waxa weeyaan waa iskuulkii secondary-ga ahaa waa halkii aqoonta loo soo doonayay waxa weeyaan iyadoo maanta halkan halkii aqoonta loo soo doonayay ay tahay in wax kala laydinku xantaa waa mid aad u nasiib darro weey mid aad iyo aad u nasiib darro weey shalayto wasiirka iyo anagu waxaanu joognay iyo gudoomiyaha iyo ummad fara badan oo kale iskuulka Sheekh Bashiir waa labadii secondary ee gobolku lahaa ee ugu caansanaa weey halkan waa halka jahliga iyo aqoon darrada laga soo galo weey halka jahliga iyo aqoon darrada laga soo galo ee cilmiga laga barto inaad adigu aad ummadda midho ka soo baxay intaad noqoto aad wax barto weeyaan ma aha halka qabyaalada loo soo doonto halkan in la idinku xanto maanta idinkoo ubaxi dalka ah in la yiraahdo waxba caynkaas ama waxbay si isku yiraahdeen ama way ishiideen ama waxbay isku waxa mid aad u nasiib darro weey waxa la idinka baahayay fikirka iyo aqoonta aad baranaysaan inaad dalka iyo ummadda uga faa'iideystaan bal idinka baahan habeen iyo maalin waxa loo soo jeedo ee qaranku u soo jeedo ee dawladdu u soo jeedo ciidamadu u soo jeedaan waa idinka inaad idinku wax barataan midho soo baxay noqotaan dalka anfacdaan kuwa maanta kuraasta fadhiya bedeshaan baa idinka doonaya kuwa kuraasta fadhiya ee maanta wasiirka iyo maamulihiina iyo inta ciidamada joogtay inta kale ay ka mid tahay inaad bedeshaan baa idinka doonaya waxa qaranku difaaca ugu jira waa ayagu waxa soo baxaan midhaha la beeraya baa tihiin in naxdinta laga ilaalinayo ee cadowga laga ilaalinayo ayaa idinku tihiin idinkoo kuwaasa inaad idinku wax kale ku fikirtaan waa nasiib darro weey anigu waxaan idin leeyahay ubixii waddankaatiin aqoontii soo koraysay baatiin fikirkeena sida halka iskuulka dhiganaysaan u balaadhin lahaydeen sida wax ugu kordhin lahaydeen sida dalka wax ugu kordhin lahaydeen sida maamulka gobolka ula xisaabtami lahaydeen sida cid walba oo oran lahaydeen maxaad noo haysaa sida wasiirka oo maanta kale idin yimi kuwa kale oo oran lahaydeen wasiir maxaad u bahaysaa maanta wasaaradda waxbarashada maxaad u soo caynkan keena guruuba noocaas oo fikir saliim iyo aqli saliima oo caafimaad qaba ka warrama oo ka hadla keena laakiin wixii hore la idinku xantay يعني دب يدون كل دعين سكول كان مجيء عيسى دوا شيخ عثمان نور شيخ خندق لكي قرانا يوم باقرانا وشيخ برعو وشيخ البلد وحا نين يمالي ووين وكشقية أصلاحه يوناجة وقبل كانوا وكنوا على إلى هذه حريصة الجماعة
أنا بري بان كيمي أنا وقت كلام وذا سعني إلى دورية طبعا أفريد طبعا عشان مالها أنا كم غني ميران نوجيمي طبعا كمير كينو كميدي هاي مقالوين كسومالي لأنه هو وين وحا إلى لح وسير أيام سقوط جناي قبل كسنة وحنو قاعدين إلى مال عرمل الله يراه إلى يوبي يشيدلي وهذا افتبو طول ساعة أرجعنا نفس السنة وحنو كوريجنا حاجة حيوها إلى ميت حيس كل ما بيعص طول بدن أيام صومال حريق عيدا بانو تغني تدوينها أنو لكل مني لوكا أنو مريني أوردن سيرة قارنا أديكية بالشدة أيس ودين قاركينا وحانو تغني سيدي أنو حول قران أيانا لودر أيوة محمد هذا كسو قيب كده marka halkan markaan marinay anigu waan ka hadlay wax kale oo gamaan hay anu Sheikh Bashiir baan ku jiray dugsigaas Sheikh Bashiir oo board ahaa president baan ka ahaa inta ardaydii markaa jirtay gudiyaa jiro iskuulka board buu ahaayo deeygu in yar baa uu ahaa inta dhigan jirtay xaafadahooda ka yimid jirtay inta kale wuxuu ahaa board marka Sheikh iyo Sheikh Bashiir buu aan waxaa fijicisay ugu noqotay oo aan la yaabay waxyaabaha burca lagu sheegay gaar ahaan ardayda waxaanu groupka yagii waqtigaa joogay ama aanu aragnay ama aanu maqalay runtii muu ahay waxaan ugu maqaalaa iskuulkan in lagu dagaalamay waxaa igu maqaalaa in iskuulkan la xidhay sababtoo ah qabyaalad awgeed waxaa gobolka jooga guddoomiye cusub oo la magacaabay oo furay baa lagu yiri iskuulka waana isaragteen baan u maleynayaa waa wada hadashay waxaa jooga taliye cusub xagga ciidanka booliiska war telefoonada naga xidha waxaa jooga la jooga horta waa ayaan daro mustaqbalkii jamhuuriyadda Somaliland raggii iyo hablihii waxaan filayaa inay habluhu hawlaha aanay ku jirin inamada inta badan waa iska caddahay meesha hawluhu ay ka socdaan laakiin mustaqbalkii in Somaliland oo dhan laga maqlo hadday sports tahay iyo inay classeski iyo iskuulkii soo galeen wax qabyaalada ah mid cajiib wallahi ilaa maalintii ciyaaraha gobolada qof kasta oo reer Burca meel alla meeshuu jooga adduunka ha noqoto meel alla meeshuu doonaha joogo wuu ka naxay waxa laga soo sheegay ardaydii reer Burca kuwii ahaayeen inay walaaloobaan kuwii ay ahaayeen inay saaxiibaan kuwii classeska ku wada jiray in lagu sheegay qabyaalad ayay soo hadlay war reer miyigii baa ka waantoobay qabyaalad reer miyigii geele iyo ariga haystay ayaa qabyaalad ka waantoobay ma macquul ba
kii classeska dhiganaya chemistryga dhiganaya biologyga dhiganaya mathka dhiganaya tuulada qabo tuuladaadii tag meesha waxbarasho loogu talagalay wallaahi billaahi tallaahi inaan been idin sheegay ka xun ee ardayda qabyaalad la soo gala taliyayaashina way maqlayaan gudaha dhigaysa iskuul dambo Soomaaliland uu ka galiyaan inaan jirin وصلت حنا في اثنين ساعة ardayda النعس mid nacasa oo weyn oo gad weyn la ka soo qaadanaya qabyaalad waxaan ka aqbalayno maaha markay arday yihiin qabyaalad kumay barbaarin malcaamad buu galay elementary buu galay intermediate buu galay secondary buu ku jiraa su'aashu waxa weeye xagee uga timaada qabyaaladu ilaan waxaanu maaha businesskiisii maaha shaqadiisii ardaygu laba shaqoon buu yaqaanaa waa siduu wax u baran lahaa iyo siduu tartan ciyaareed u geli lahaa labadaa hadduu ku mashquulo wuxuu noqonayaa arday successful wuxuu noqonayaa arday naftiisana anfaca waalidkiisa anfaca magaaladuu joogo iyo degmada iyo gobolka iyo Soomaaliland oo dhan anfaca marka waa maxay xagee waxaan uu ka imanayaa waxaan idin sheegayaa qaarkood waxa laga yaabaa in gurigiisa ka yihiin waa biyo inta badani isma yiraahaan inaan kaaga fidnee oo ma baraan qabyaalad laakiin waxa hubaala inuu kala yimi in loo soo waariday qabyaalada waxa weeye yaa soo waaridaya fidmadaada iyo waxaad wado meel kale laad oo meel kale kula tahay waxa laga yaabaa inuu idin keeno nin siyaasi ah oo ama xisbi doonaya ama doorasho doonaya sidii doorashadii deegaanka waad garanaysaan qabaa'il baa loo kala baxay kuwii isku qabiilka ahaa baa sii kala baxbaxaya la eegi maayo war ninkan la dooranayaa ma yahay nin degmadaadii anfacaya nin ardaydii anfacaya nin waalidka waayeelka ah ee xanuunsanaya anfacaya nin gobolkii anfacaya nin dalka anfacaya oo horumar iyo wax ku soo kordhay muxuu kugu tarayaa hadaan wax alla wuxuu ku sugan yahay baa aanu jirin qofkaas oo aanu macnaha uu leeyahay aanu jirin ee uu kula degayo aayahaaga iyo mustaqbalkaaga iyo dadnimadaada intaba uu la degayo muxuu qabiilkiisu ku tarayaa waxaan qabaa inaan waxba ku taray anu adduunyadan ka yimid aan 3 sano joogay America la yiraahdo laguma doorto ninka qabiil nin madow oo Obama la yiraahdo madaxweyne ka ah oo markii labaad dib loo doortay aabihiina Afrikaan ahay oo Kenya uu ka tagay war meelaan aqli lahayn secondary baa dhigataan saad u fakiraysaan iranka madow ee Mareykan oo cado 300 milyan oo qof ah maxay ku doorteen waxay ku doorteen aayahooda iyo mustaqbalkooda ayay u arkeen inuu kaga wanaagsan yahay kuwa cadaay laha cadaan baanu nahay oo anaga dal kale iskada qaar wada ilmaadeer oo oday ku abtirsada 300 milyan adduunka oo dhanka kala yimid meel walba every nationality adduunka kale ayaa inay midoo doortay 2 terms laba jeer bay doortay waa wax lagu cibra qaato shayta slave buu ahaa aabihii iyo awowgii ninka madow
64 kiiba ugu horeysay inuu footeeyey oo loo ogolaaday inuu Mareykanka footeeyey 1964 dooyaa lagu keenay isagoo xadhig lagu wado ama silsilad nin baa lahaa ninka madow iyo gabadha madow sida aad property-ga muraayada aad u leedahay oo kale ayaa loo lahaa maantana Mareykan iyaga dalka adduunka ugu xoog weyn hadday technology tahay hadday dhaqaale tahay hadday military tahay hadday tacliin tahay inaan madow wax xukumo can you imagine يعني ما فاهم كرتها إذا كان النعس باه بين كيدي سو جودية ها واحد لو وحو أجيه الدنيا ده أنا كذي ودوري المستقبل كاجي آية حاجة يفتين ككوب حياة ولدقو وحاق بيالد سو واردة nin dawladda ku ruuxanaya oo siyaasi ah oo isla xilha lagu magacaabo habar jeclaanahay reer hebel baan ka sii ahay habar yoonis baan ahay reer hebel baan ka sii ahay reerka iyagu waxba ma helo talaayay naclad baa ku fool xumadiisa warmeeda arag rag halka intay soo taagaan meedan ka nixin oranaya haddaan reer hebel nahay oo xoog weyn oo yani aad arkayso inuu buura kala hayo ayaad moodaa xitaa isla xishoon maayo naftiisa xitaa isla xishoon maayo haddaanu reer hebel nahay haddaanu sidan nahay ha dan gaaruu leeyahay oo qura waa ama xil hal lagu siiyo maxaa laga siinayaa xil nooca waxaa isla soo taagaya TV-yada qaranka isla soo taagaya ee aad yaqiiqsoonaysa sida u hadlayaan maxaa xil loo siinaya miyay istaahilaan waxaa soo waarida mid lacag doona hunguri halkaa u dhintay oo nolol ka yaqaana maxaad cuntaa iyo maxaad xaggaad wax ka heshaa xaalad abuur iyo sheekooyin iyo waxaan jirin ya oranaya ana ardaydii soo kala hagaajinaya hadda isaga ka sabab waxay marka horeba isaga ku soo beeray afarta arday isaga soo xuliyay marka hawlo yar keena waxaan idin kula talinayaa noocaas waxa sidaa u nool nooca sidaa u nool ee tala ka yaqaana dalka yar ee soo koraya ee aynu ognahay wuxuu soo maray ee aynu ognahay inta mujaahid naftooda u hurta ee aynu ognahay xaaladiisa maanta hadday dhaqaalo tahay anigu waxaan joogaa maaliyadda school elementary ayaa dhowr boqol oo milyan oo dollar budgetkoodu meeshaan ka yimi ee America Somaliland oo dhan budgetkeedu waxa weeye 152 milyan dowladda dhexe marka dowladaha hoose lagu daro waa 212 milyan kala badhiye in ka badani ciidamada qaranka gasha inta soo hadhay Somaliland ilaa laas qoray ilaa loo yacday siila ayay gashaa halkaynu ka fikri lahayn war sidaynu dalkan u dhisnaa oo aynu wuxuu noqonaa i'tiraaf wali ma hayno inaga isku jeedsan ila ardaydii bay maraysaa cadawgaagu wuu fara badan yahay oo laguma ogola inaad xorna noqoto
lagumana ogola inaad horumar gaadho rag baa ka shaqaynaya intaad idinku iska shaqaynaysaan rag baa ka shaqaynaya sidaa ku baabiin lahaayeen ama ku burburin lahaayeen niyadda ku haya qodobka markuu habeenkii kuu soo gudayo ama uu meelaha casarkii kaa helayo niyadda ku haya raggii dhintay haddaad dib u eegto gabadh walba iyo nin walba qof lama huraan oo garanayaa ayaa dhintay maxaa ku dhaca ayaa ku dhintay halgankii maanta xabaashaysa isugu rogayaan meesha ay naftooda u hureen iyo kuwii ay islahaayeen cisi iyo sharaf ku noolaadaan wuxuu naftiisa u hurayay inaad cisi iyo sharaf ku noolaadaan inaan adiga inta la isku kaa xidho aan xabad lagula dhicin ama lagu toorjar garayn oo kelbad xiliyaha lagaaga qaban wuxuu naftiisa u hurayay inaan walaasha adigu hortaagan hortaada lagu kufsan ama hooyada idina waxay idiin keenayaan habar jeclaan haye habar yoonis baan haye ciise muusaan hayo cabdalla arab baan waxaan dhallinyarada isdhexgeliya ee ay ku walaaloobaan waxbarashada qura ma haya kalaaska ciyaaraha ka mid ah ama sports waa kii xildhibaanku ka sheekeynayay sports halka ay marayso iyo burco siday ahaan jirtay anigu waan wada garanaya common bay ahayd inay badan oo isku wada qabiiliin ku jiraan ciyaartooyda because looma eegayn reer hebel iyo waa jilibkee waxa loo eegayay madaxiisa iyo cagtiisu maxay samaysaa oo kubadda markuu ciyaarayo maxariif baa mise maaha ayaa loo eegayay waxa la xuli jiray ninba ninku ka xariifsan yahay who cares hadduu koobka soo qaadayo oo Soomaaliland koobkii ka soo qaadayo idinka iyo inta goolka tog dheer joogto oo dhami inaad full support garaysaan baa loo baahan yahay dhalinyarada oo ay tababar fiican qaataan oo aydan kabta can you believe that kabtanima la isku qabqabsaday ya iyo tababare iyo yani caqligu ma keenayo waxyaabaha qaarkood ma keenayo waad ku khasbantihiin walaalkiin nabadgelyada iyo walaaltinimadiina mid la idinka baryaya maaha hadduu inaan xumeedo ku jiro intiina kala badan iska qabta ka xuniyuu ku hogaamin waa inuu caqliga shaqeeyo oo ka caqliga leh uu hogaamiyo waxaan qabaa intiina badan inaan nadiiftihiin ayaan qabaa nabadgelyaduna midaan u labalabaynayna maaha amaanu walaac kaga jirno hadduu arday yahay iyo hadduu oday yahay nin alla ninka fidmo wada amar cad bay qabaan ciidamadu waa runtii muxuu halkan u fadhiyaa shaqadiisu waxa weeye inuu qarankan daafaco shaqadiisu waxa weeye anuu gambaraan soo ilaa gambaraantiga ilaa waxaan tagay carmalo ciidamadu ku leeyihiin
oo 80 meel u jirta magaalada Ceergaabo leedahay halkaas waxay hadhiye habeen heegan u yihiin oo aanay xaaskooda u arag oo aanay carruurtooda u arag oo aanay kuwa jeclayn aanay u arag ee ay meel dhaxan u badheedheen oo kuleyl u badheedheen oo gaajo u badheedheen oo harraad u badheedheen si ay idinkeedii daafacaanaad nabad noogu seexataan nabadna ugu soo toostaan qarankana aanina u haweysan hadduu Puntland yahay iyo hadduu Soomaaliya yahay iyo hadduu cirka ka soo dhacayo rag heegan aad haysataan war hadday intaasoo dhan iyagu naftoodii u sacrifice garaynayaan kuwiinii jaanis ka helay ee aabbayaashood la jooga ee hooyooyinkood la jooga ee waxbarasho haysta miyaan ilaahay baa idinku dhaarshay ceeb ahayn in laydinku eedeeyo ama laydinku sheego qabyaalad bay isku haystaan waa wax laga yaabo oo aan maxaan ku dhahdaa la arki karin jamhuuriyadda Soomaaliland way ka go'aantay Siilaanyo Axmed Maxamed Kanuun هذه Siilaanyo way ka go'aantay amar cad baan ay qabaan gobolkuna qabaa degmaduna qabtaa hadduu arday yahay iyo hadduu macallin yahay iyo hadduu odayga nacaska yahay intaba wala aniga ugu jiro fidma aanu ka yeelayna ama aanu ka aqbalayna burco ma jira gacan bir aan ku qabanayna waxaan doonayaa inaad cooperation la sameysaan macallimiintiina heegankeeda waxaan doonayaa inaad mustaqbalka iyo dhismaha dalkan idinka mustaqbalkeedii leh inaad hantidaan tomorrow nobody knows madaxweynaha qaranka inuu iskuulkan ka soo bixi doono gabdhuhuna way ku jiraan madaxweynenimada gabdhuhu wasiiray noqon karaan wayba yihiin dee madaxweyne dalkan ka noqon karaan waayo inamada way kaga fiican yihiin mar haddaad mustaqbalkii tihiin oo aad wax walba ay idin hor yaaliin yaanu qof idinka ciideyn Somaliland maanta la eego dal qura ayaa la mid ah 70% boqolkiiba 70 dhalinyaro ay dalka noqonaysa soddonkaa kale way soconayaan oo halkii loo badnaabay tegaya macnaheedu ma aha waxaad ka xigtaan wadka laakiin for sure waxa weeye Somaliland dhalinyarada ayaa dalkan qabsanaysa saddex saac oo dhow waxaan idin leeyahay mustaqbalkiinaas iyada ka loo inaad isu dhigtaan raggii iyo hablihii dalkan gacanta ku qaban lahaa inaad ka qayb qaadataan dhismaha madaxweynuhu wuxuu ku baaqay waddada Ceergaabo oo wadda dheer qofkii maray uun baa garanaya anu biliya badh Yurub baan wareegi aniga iyo gruubi la socda dadka jamhuuriyadda Somaliland ee reer Yurub jooga ayaanu lacag u weydiinay waddada Ceergaabo waxay ama ku balan qaadeen ama ururiyeen lacag 9 milyan iyo badh dadka reer Somaliland ee area dalalka degan Ingiriiska iyo Sweden iyo Norway yan wax lagu faanahay 9 milyan iyo badh dollar dawladayna siiya ma jiraan cidina siisaa ma jirto waxay ku tusaysaa haddaynu inagu isku tashanno oo aynu wax wada qabsanno oo aynu hay'aheena ka fikirno inaynu wax walba samaysano ilaa weligeed lama dhisin waddada madaxweynuhu wuxuu u dhisayaa oo uu ku kalsoon yahay inay dadkiisu dhisi karaan kuwa uu ku tashanaya waa idinka ka mid baati
haddaad dollar bixiso ama 50 cents aad bixiso waxbay taraysaa meel bay buuxinaysaa haddaad markaad waqti leedihiin iskuul ama wax kale meel ka xun tahay aad ku dhisto iskaa wuxuu qabso haddaad caawiso gabar danyara oo carruur leh oo ninkii ka geeriyooday oo jaarkiina ah oo aad garanayso oo aad carruurta la caawiso wuxuu dhigto ifii aakhiraba wax ku qoran haddaad oday waayeel oo xanuunsanayo oo jaarkiina xaafadiisa qabiila la qabiilku doona ha noqdo waxa aad la qaban karto aad la qabato waa mid ifii aakhiraba kuu jirta waxaad dareemaysaa inaad contribute garaynayso noloshaada inaad dalkaagii iyo dadkaagii wax u qabanayso ayaad dareemaysaa ka qayb qaata dhismaha dalka maadaama aad future-kii tihiin waqtigiina ha ku luminina qabyaalad iyo qurun iyo waxaan waxba kaaga soo gelay reer alla reerku doona ha noqdo inanku haddaad saaxiib tihiin walaalkaa wallahi isagaa kaaga wanaagsan iyo bilaahi iyo tallah isagaa kaaga wanaagsan inankaad saaxiibka tihiin yaan la idin jara habaabin waxaan idinkaga tegayaa maadaama aan ku kalsoonahay inaad majority-giin intiina badan aad nadiif tihiin oo qabyaaladda la soo waaridayo inaad rejection ku samaysaan aad diidaan inaad diidaan aayo umale dalkan idinka idiiba leh meel alla meelaynu gaadhaynaa ma jirto intaynu ka energy-gayna kaga baxaya wax waxtar lehnu ku samaysaan waxaan idinkaga tegaya mustaqbalku waa future-ka Somaliland mustaqbalku gacmihiina ku jira waxay idin noqon doontaa laba midood qaar gacanta ku hantiyey oo jeexda baaska ay marayaan jiil walba iyo dhalinyaro waliba iyo qof shakhsi waliba isaga baasku isaga jeexda isaga ayaa fikira oo yiraahdo ma dhakhtar baad noqonaysaa isaga ayaa fikira oo yiraahdo ma engineer baad noqonaysaa isaga ayaa fikira oo yiraahdo ma macallin baad noqonaysaa ma politician baad noqonaysaa ilaa heer degaan ilaa parliament the sky is the limit arku intuu leeyahay Soomaaliya possibilities waxa aad qabsan kartaan ee aan cidina idinkala wadaagi karin markaad kaligaas la tashato waa arkaas oo kale sidoo uu yahay laakiin waxa la doonayaa inaad min koobto oo aad eegto waxaad ku wanaagsan tahay oo aad ka midho dhaliso ayaa rabaa oo aad kala garato ka danta gaarka leh ee guriga u nool iyo maxaad cuntaa ka kala qaybinta ay ugu badiso ee doonaya inuu ku yiraahdo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel baan waxa la wuxuu reerka ku talaanaanay jiray waa fulay nacsa ana idin leeyahay ku celcelinaya waa nacs future-kaas waxaad maraysaan crossroads waqtigu qofku nolosha ama ka dhaco ama uu successful ku soo baxo ayaad maraysaa ama ilaa jaamacad baad u gudbi kaan u gudbayna ama nin shaqaysta buu noqon doonaa oo wuxuu ku wacan yahay shaqada uu
doonayo ku wacyahay qabsanaya ama waxaad noqon doontaa nin afmiishaara oo afmiishaara kale ay wada hawaabiyeen ilaahay waxaan ka baryayaa inaad noqotaan kuwii dariiqooda jeexda oo dalkooda iyo dadkooda iyo waalidkooda iyo magaaladooda baa anfaca magac iyo haybad iyo sharafna ku yeesha sidaasaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum مرتدان ورنات كلا هفناها قبت الراء وحدنا